بسم الله الرحمن الرحيم. مقعيق ونعيمة عبد الرحمن عصير كمقع دير نمع النظر. مانتا وحان ماشان روائن aan soo jeediyo barnaamij kaas oo ah in aan naqdo gabadhii ugu horeysay ee dalka Soomaaliyeed isku soo sharaxdo madaxweynaha dalka Soomaaliya. maxaa yeelay 21 sano ayay ragna hogaamin waayeen. maanta waxaan leeyahay waa in aan hogaaminaa raggeena, waa in aan u sheegnaa wixii fiican, waa in ay natiijabiyaan, waa in meeshii fiican aan isla fiirinaa raggeenu mar walba ayaga hogaanka hayo. laakiin markaan waa in lagu fiiriyo inaan hogaanka Soomaaliyeed qaban karno kana bedeli karno sidii hore. marka waxaan idin leeyahay waxaan ahay hooyo musharaxad ka ahayd wadanka Norway, haddana tijaabinayso in ay wadankeedii hooyo ku laabato is soo sharaxdo. waxaana garab igu sii doono dawladda Norway. Naciimo, walaal maxaa kugu dhaliyay inaad isku soo sharaxdo madaxweynaha dalka Soomaaliya? walaal waxa igu dhaliyay nabad daro awgeed ka jirta wadanka Soomaaliya. raggi hore ayaan u tijaabinay, haddana waxaan doonaynaa in aan haweenka Soomaaliyeed tijaabino in ay wax qaban karaan kana bedeli karaan xaaladda hadda jirto. Naciimo, dalka Soomaaliya dhibaatada ka taagan yee aad si weyn u saameynaysaa? walaal dhibaatada dalka Soomaaliya ka taagan waxay aad u saameynaysaa haweenka iyo caruurta yaryar, gaar ahaan duqowda ayay aad u saameynaysaa ee aan guryahooda ka carari karin. waxay aad u saameynaysaa camoolayaasha indhaha la, waxay aad u saameynaysaa shicibka Soomaaliyeed. Naciimo, waxaa wareystay anigoo Saada Cali ah.